beeshan oo ka mid ah beelaha dega gobolka Bari ayaa magaalada Boosaaso ku yeeshay shirweyne wada tashi kaas oo ay ku soo dhaweynayeen kuna taageerayeen doorashada qof iyo cod ee Puntland. Shirka waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Puntland, qaar ka mid ah madaxda urur siyaasadeed Puntland, isimo, culimo, ganacsato, dhalinyaro iyo haween. Ugu horeyn ismada dhaqanka ee beeshan, haweenka iyo aqoon-yahanka ayaa ka hadlay ujeedka shirkan iyagoo ku baaqay in la xoojiyo midnimada. waxaan ku faraxsanahay mar labaad mar saddexaad mar afraad inuu shirar badan inoo soo qabsoomeen kanna uusan noqon doonin kii ugu dambeeyay. aad iyo aad baad u mahadsantihiin waana idinku soo dhaweynayaa. shirku wuxuu daaran yahay sida gadaashayda ka muuqata in la taageero ay beeshu taageerto doorashooyinka qof iyo cod insha Allah ta'ala aan rajaynayno inay Puntland ka dhacaan xilliga inagu soo aadan. waxayna beeshu oga dan leedahay markay sidaa dhayso inay codkeeda iyo cududeeda ku raadsato xuquuq ka maqnaa sidii loogu tala galay insha Allah ta'ala iyadoo ku soconaysa insha Allah ta'ala taasay oga dan leedahay beeshu insha Allah. waxaa loo baahan yahay guddiga farsamadan iyo arrimahan ka soo shaqeeyay inay magaranaysaayay moraalkooda iyo farxadooda ay tahay walaalahood oo si fiican u garab istaagay oo soo ajiibay garabna taagan isamadii culimadii ugaasiyadii suudaani dhammaan la isku wada raacsan kulmada maanta. guriyaan ku leenahay ganacsi baan ku leenahay khayr baan u keenay waxbarasho dad xun oo uruna ma nihin codayntana cidna nagama laha. waxaan u caddaynayaa inta caawa shirka fadhida tomajibaarkeed inay codaynayso cidna ayna magan uga ahayn. gobolada Puntland dadka codaynaya ee wadanka u dhashay oo inagu ka mid nahay kama fogin muwaadiniin baynu nahay. dalka waxaynu ugu xumeeyay maynaan arkin waxaynu nahay muwaadiniin haddana waxaynu ahayn muwaadiniin intii ka horeysay kala maqnayd laakiin maanta waxaad moodaa inaad la fahanteen dunidu halka ay marayso. waxa weeye ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa mahad iskale nin kasto waa ilaahay ka cabso lafahaaga ilaahay uga cabso. waxa weeye taa macnaa culimadii baa joogta anigu ma tasfiiri karo. waxa weeye maanta idinka magan leedin yahay cidna inaydaan magan u hayn baan idin sheegay. guddiga hadaay waxaan weydiiyey geedicaana leh xagee reerka ku furteen bay dhaheen kaabaan ku furnay bay inagu dhaheen sameeyna maqlaynin. waxa muhiimadu tahay in aynu inagu isku xirnaano oo aynu nahay hal cudud ama hal cod oo meel wada socda laakiin hadda kala socono meel lama gaarayno. waxaan ugu boorinayaa wada socod insha Allah. mar labaad mar saddexaad aan leeyahay kuumada ha guuleysto insha Allah hadafkeena ha noqdo midnimada iyo wada jirka iyo istaageerada isdhageysiga ha noqdo. qaar ka mid ah golaha wasiirada Puntland kana mid ah xubnaha urur siyaasadeedka ka ayaa beeshan ka codsaday inay codkooda ku taageeraan ururka. seejo kasta oo aad ka codayn kartaan ka codeeya codkiinu waxbuu matarayaa dawladnimadu wax tarayaa isbeddelka iyo dimuqraadiyadda aan wadno wax tarayaa kaabayaasha dhaqaalaha iyo mashaariicda horumarineed ee wadanka ka socda gaar ahaan magaalada degmada Boosaaso ka socda wax tarayaa. xuquuq aan qarsoonayn inaanu u dagaalano idinku ergeyno oo aanu sawirkaas caawa markuu baxo annana aanu idin hor taaganahay aanu ilaahay wajigi ballan qaadaynaa haddii ilaahidmo idinkuna doorashada noogu rida annaguna maalintii dawladnimada aynu gacanta ku dhigno iyadoo qof iyo cod ah xuquuqdiina inay bannaanka la dhigo baanu ballan qaadaynaa ilaahay hortii. waxaa la rabaa xuduudiina saa u muujiteen damaanta waa la arkaayo haddii shalal idinku qaldamay bari la idinku qaldamin baayo laakiin saynu u saaxiibno waxa la rabaa 25 bish codkiina inaad ku cilbaxdaan inaad ugu cilbaxdaan haddii dad badan baa casunteen oo urur badan baa casunteen ururka halkaan idinku yimi oo ka ah inaad ugu cilbaxdaan balan ma tahay yaanu codaynaynaa. beeshu hadda caawa intaan iyo in kaloo badan oo maqalna way jirtaa xoogaal baan waxaan rabnaa insha Allah 25 bisha
sidii la xusay kumada iyo hal geela la isu tilmaami maayo way siqaanin waxaan rabnaa hashaa geela 25-ka bisha iyo ururka kaah inaad codka siisaan si aan u noqdo xildhibaankii beesha matali lahaa 5 sano soo socota Qadar Cabdulqaadir Xuseen warbaahinta SBC Boosaaso.